محمد مدحوينه حسن شيخ محمود مدحوينه أحمد محمد إسلام مدحوينه عبدي حسن عبد عوالة حسن عبد حسن عوالة قيبديد مدحوينه علي عبد الله عصبلة سنة الرضا حلوان نضا قبلها دلنيردا خيارته بدن هلك جوجت دمانتين وسلامتين سلامته كدب waxaan rabaa aniga meesha inaan dad badan anigu soo dhaweeyo xamar cidii ku dhalato deganaya dad ku soo dhaweynaysa ninka la soo dhaweynayo aniga ma marka aad baan u faraxsanahay runtii xafladan waxaan ka mahad celinayaa akhyaarta soo qaban qaabisay oo madaxweyne cali mahdi maxamed uu mudan yahay una weyn yahay waxay noo tahay sharaf waxay noo tahay in lagu karaameeyay xilka iyo mas'uuliyadda aan hayno waxaan ka mahad celinaynaa runtii intii soo qaban qaabisay intii soo ajiibtay runtii in sir noocaan oo kale la qabto sida la sheegay isaga fariin ku filan fariintaas annaguna waa qaadnay inta maqanna wayna la aragtaa waxay muujinaysaa Soomaali inaysan kala maarmin isu baahan tahay aan tashanno oo yeenu kala tagin saas anagu qaadan annagana intaasaan u nimid dareenka dadku waa isku mid joogay xamar iyo mid maqanba waxaan filayaa dadkan ma aha dadkii looga sheekeyn lahaa maraaxishii la soo maray intoodaba mas'uuliyiintii iyo dadkii xilkaska ahaa oo xaaladaas la soo macaamilayay waliba intii ugu wanaagsanayd ee wanaaga ka talinaysa maanta halka fadhida wixii nagu dhacay way nagu wada dhaceen wax tagana tiigsimaad malaaliya shalay ahayd maanta iyo berri ayaa tala nooga baahan talada aan u baahannahay waxa weeye ugu muhiimsan inaan ilaashanno inta aan soo qabsanay oo aan xasiloonida maanta yar ee aan haysanno aan ku soo gaarnay inta aan haysanno inaan ku faraadeegno inta inaga dhimanna aan ka wada tashanno waan hubaa dadaalkaas dadku siyaabo kala duwan inay ugu kala jiraan laakiin waxa cad qof walba meeshiisa hadduu ka qabto si gaar ah inaysan waxba hagaagin in talada la ballaariyo oo talada la badiyo ayaa muhiim ah runtii saad ogtihiin xaaladda hadda taagan oo fariimaha badan ee halka laga jeediyay fariinta ugu muhiimsan waa fariinta doorashadu 4 sanaba mar inay dhacdo waa udub dhaxaadka xasiloonida siyaasadeed ee Soomaalidu maanta haysato qof walba oo damiir leh kaasi way gubaysaa xumadda xilliga doorashada dhacdana waa wax iska jira oo dadka waxay u qaybsamaan kuwa doorashada raba in la doorto iyo kuwa saaxiibadoodii ehelkooda la jecel in la doorto marka waa lagu wada jiraa xumadda doorashada laakiin waxa la rabaa mar walba si miyir qabta oo deganaansho ku jirto oo runtii wixii meeshii la joogo hore uga dhaqaaqaysa in hadba lagu eego waxaad ogtihiin fariimaha halka waxa ka baxay dhuusamareeb in la tago ragga hadda naga maqan awalba wada joogi jireen horta aniga Axmed sabab u ahayd dadka maqoro dhuusamareeb yimid annaga ahayd saaxiibada hadda waa maqayn waan u sheegaynaa inta badan in runta la isku sheegaa fiican dhuusamareeb koow dadka yimid annaga ahayn laba annaga joognay saddex dadkii gogosha dhigay baan haddaan ka maqannahay horta wili nooma furmin annaga hadda waa furantay dheen laakiin anagu wili waa noo furantahay maxaa yeelay gogol aan anagu wax ka lahayn gogosha wax ku leedahay xataa hadaa maqnaat waa la isla sugaa marka hadday cid laabtay ay jirto annaga ma oginahay hadda cidaas la weydiinayo horta laakiin anagu waa noo furantahay ulajeedadeedana waxa weeye dad Soomaaliyeed in looga tashado
waan qabnaa oo marar badan baa siyaabo kala duwan u sheegnay oo dhuusamareeb 1 iyo 2 ba ay ku soo baxday in doorashada waqtigeeda ku dhacdo in mid la isla ogol yahay dhacdo intaas waa lagu celceliyaa waxaan kaloo qirayaa si aan la isku dhaxyaacin dadka u haysta mandate oo hay'adaha dawladda markaas ama mas'uuliyiinta ka ah ayaa horta talada laga sugayaa dadka badan ee hadda hadlay hadday gacantooda ku jirto annagana lama hadleen waxay la hadlayaan waa dadka mas'uuliyadda markaa jooga marka runtii in si fiican loo maqlo dareenka dadkana waa muhiim intii aan joogay xamar sida la sheegay dad badan baan arkay anoo maqan baana dareenkooda ogaa maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed ama hal wada jooga ama la maqnaadee waa isku dareenka laga walwalayo waxa weeye war meeshaan joognayaan dib uga dhicin ee aan hore u socono talo walaalnimo lagu wada socon karaa dadka markaa xilka haya kuma ceebeysna in ay xilka mar labaad doonaan inay ka shaqeeyaan si ay isleeyihiin waad ku guuleysan kartaana kuma ceebeysna laakiin waxaan rabaa processka loo marayo inuu noqdo equal opportunity ila adiga kaliya ma cid tartamaysa hadaba cid kale aad u baahnayn inaad tartantid uma baahnid oo doorasho qabatid haddaad ba ogtahay in doorashada inaad rabtid inaad qabatid waxa laga rabaa processka inuu ka khaldabin oo processku uu sax ku socdo qof kastana markaas uu fursadiisa halka ka helo adigu waaba kaga sii farwacan tahay oo waxa laga yaabaa in kastoo doorashooyinka loo ogolaan qofka xilka hayo laakiin hadda Soomaaliya baa wali heerkaas laba gaarin imkaaniyaad badan oo dawladnimo inaa wali dul fadhiid marka waxaan rajaynayaa sunnadaas soo socotay oo quruxda badnayd oo madaxda halka qayb joogta qaybna maqan tahay hadii madaxda isbedeshay bar walba waxa lagu celceliyaa inta hadda noole Cali Mahdi iyo maxaa la yiraahdaa Xasan Sheekh iyo Shariif hadii kaligiin ma hadii qaybdiida halka kamid oo cusubla kamid oo madaxda gobolada ruuxadooda in la isbedbedelo waa taqaana oo hadda madaxdii hore Puntland kaligeed ma dadka isbedbedelo dadku waa ogol yihiin in la isdoorto oo la isbedelo ceebna ma aha marka aan waxay la tahay Soomaalida waxa la raadinayo waxa saldhig u ah waa in la helaa deganaansho iyo nabadgelyada hadda jirta inaysan dib u dhicin waxa la rabaa in lagu gaaro wadar ogol iyo isku tanaasul afartaas oo labana ay tahay labada asaaska labana ay tahay wadada loo maray hadii la isla fahmo waxa kale xumaanay way yaraanayaan hadii la hayno laakiin dadkan dad isir kara ma aha dadku hadda inda yar uma fidnay full baa wada shidan dadku meel walba waa arkaan marka nin indhihiisu waa weeyeen meel aad ka laabanaysid ma leh waxaan aad uga mahad celinayaa runtii gogoshaan dadka dhigay deegaanka Muqdisho waa sida la sheegay Muqdisho waa magaalo madaxdeena waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed ee deganayd waa meeshii cid walba kan deganayna uu soo haqaltaagi jiro markay dani ka gasho uu imaan jiray way haddana waa sidii oo dabeecadaas ma aysan bedelin dadka degan oo u badan si hadda loo kala badan yahay garan maayee laakiin haddana muddadii la joogay oo hadda dawladdu ay ka dhisnayd waa muuqataa in deganaanshuhu iyo sabirka aad sheegteen waa ficil xaqiiqi oo jira laakiin waa sabarna kaliya lagama rabo waxaan laga rabaa hoggaanka dalka tiina ina wax ka qumisaan oo hagaajisaan xamar sida uu ekaanayso maanta kaliya farmaajo lagu ma haystay hadii waa joogi jirteen ruuxadiin waxaa la rabaa xamar ina hoggaankeeda la qabto wixii ka khaldan laga saxo oo ay noqoto meeshii wax laga bilaabay asalka ahayd waxna waa sharciga iyo maqaamkeeda waxna waa muuqaalkeeda iyo nolosheeda hadda hatta marka laga tago maqaamkeeda iyo soo noqonaysa ay la dooranaysa marka laga tago xamar sidee hadda ay u egtahay si lagu raalahan kara ma amaan ma jiro nadaafad ma jirto meel walba waa la dhistay hadda caasimad Soomaaliyeed ku noqoto naftirkeeda in laga shaqeeyo u baahan tahay aniga magaalada waa jeclo waa ku dhashay abil waxaan u dirayaa dadka hadda jooga hadda aanay ma degani
magaalada xamar waa la xumeeyaan maqli jiray xamar xumeynta laga dhaaf oo siday hadda ku sugan tahay wax laga bedelo annagoo dhan diyaaraan u nahay maxaa yeelay qalbigeena iyo qulubteena la jirta xamar wanaageedaan rabnaa xamar oo xumaata waa dawladda Soomaaliyeed oo xun waa muraayadii dalka waa caasimadii dalka maqaam kasta iyo sharaf kasta oo ugu mudan tahay inay Soomaaliya inteeda kala siisay munaasab u tahay waxa intaas dadka Soomaaliyeed laga kiri laayahay war dawladnimada marka la dhisayo waxa saldhig u ah is-ogolaansho siyaasadeed talaabada u xigta wax weeye sharci lagu qotamiyo waxaan sharci lahayn hadhow waa murankeedu badanaya waxaan qabaa hadda anigu ma qabo waxyaabo sharci ah iyo waxaas inaan ka hadalno hadda xaalad adag baan maraynaaye horta awoodeena aan isugu geeyno dalka sida doorasho u galeyd taas saldhig ah laakiin waxaan ka rabnaa hadhow yaan la cabaadin dawladda soo socota ay timaado waxa la rabaa wixii ay qaban lahayd hadda in la isla garto oo aysan isla dhaafin oo sanadka ugu dambeeya aan la cabaadin waxaan u baahanahay mar walba sanadka ugu dambeeya la yiraahdaa see isu dooranayna waxaan hadalkay ku soo gaabinayaa gogasha noocaana in aad loo badiyo arrimaha siyaasadda waayadan dambe Soomaalidu waxay leedahay habeenkii bay ka shaqeysaa hadda ka bacdu waxaan rabnaa siyaasadda maalintii in laga shaqeeyo xalaal maxaa loo oran jiray daraar baa la qashaa Soomaa bahashan hadde mugdiga ah horta naga dhaaf haddii mugdi lagu jiro dadka shacabka victim noqonaya in yaroo habeenkii wax qaybsata waa ogahay haddii habeenkii la iska dhaafo dad badan shaqo weyn doona dhagdheer iyo dhagay shaqo laakiin kuwa kale oo badan shaqo ilaahay dib male marka shaqada maalintii laga dhigo dadku saraaxa u wada hadlo waa la kala garbaxaya haddii ilaahay ka dhigo marka taasna waa kaftanku maanta waa furan yahay maxaa yeelay gogol aan kaftan lahayn walaalnimo ka muuqata la yiri marka in la kaftama loo baahan yahay fariimihiina si fiican bay noo galeen laakiin ficilkeeda in asal qabanaa rabna waa mahadsantiin